in badan waxa suuragal ah in aad daawatay taxanaha laga sameeyay risaalada nabiga naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee mase ma isweydiisay dadka filimkaasi matalaya cid ay yihiin waxa taxanaha risaalada nabiga ka soo muuqday shakhsiyaad inta badan caan ka ah masraxiyada jilada balse ujeedkeena maanta waxa uu yahay qisada jilaaga reer Mareykan ee aan muslimka ahayn ee laga jeclaa dhammaan wadamada Carbeed kadib markii oo dhowr filim oo islaami ah oo ka mid ahaa filimkii laga hadlayay taariikhda risaalada uu ka soo dhex muuqday isagoo filimkaasi ku jiray dowrkii ama kaalintii Xamse bin Cabdi Mudallib Allah ka raali noqday kaasi oo ahaa nabiga adeerkii inta aan gudagelin qisadan fadlan nagu soo biir oo subscribe inoo saar bogeena mahadsanid ninka maanta aynu ka hadlayno waxa lagu magacaabi jiray Anthony Quinn waxa uu ahaa jilaa reer Mareykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda wadanka Mexico waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah jilayaasha ugu wanaagsan ee jilay aflaam caalami ah waxaana filimadiisu ay ka gudbeen xuduudaha Mareykanka isaga oo jiray filimada dhowr shakhsiyaad geesiyaal ah kuwaasi oo taariikhda baal dahab kaga qoran shucuubta Carbeed iyo shucuubta Islaamka ayaa aad ula dhacay filimada Anthony Quinn ee sagaashameeyadii iyagoo dhab ahaantii aanan garanaynin taariikhda dhabta ah ee jilaagan isagoo yar ayaa Anthony Quinn iyo qoyskiisu waxay ka soo guureen wadanka Mexico iyagoo saldhigtay wadanka Mareykanka waxayna hayeen qoys sabool ah aabaha reerkani waa mechanic waxa uu markii dambe u geeriyooday isaga oo yar wiilkiisa Anthony Quinn waxa qoyska Anthony Quinn soo fool saartay xilligaasi xaalad adag sidaas darteed waxa uu Anthony isku dayay in uu shaqo raadiyo si uu u daboolo booska aabihii isagoo 9 jir ah ayuu bilaabay inuu ka shaqeeyo xirfado kala duwan isla xilligaasina waxa uu ahaa mid dhigta iskuulka dugsiga sare markii uu dhameeyay waxa uu noqday feeryahan si uu xogaha lacag ugu helo hase yeeshee mid ka mid ah saaxiibadiisa gaarka ah ayaa kula taliyay ninkan in uu ka bedesho xirfadda feerka maadaama aanan wax lacag ah oo badan aanan laga helin sidoo kalena halisteedu ay badan tahay waxa uu kula taliyay in uu dhanka jilada filimada u wacdo markan oo uu ku tijaabiyo xirfadiisa waxa uu saaxiibkii xasuusiyay lacagaha fara badan ee jilayaasha aflaamtu ay ka helaan sidaas awgeed Antonio waxa uu toos u abaaray mid ka mid ah masraxyada riwaayadaha ee ku taallay magaaladiisa waqti badan kuma qaadan ilaa uu noqday jilaa dadkiisu ay aad u jecel yihiin eegmadiisa quruxda badan iyo hibada uu leeyahay dhanka filim jilada waxa uu muddo yar Antonio uu ku jilay filimkiisii ugu horeeyay sanadii 1936 waxaana kadib u xigay in uu qayb ka noqdo jilada filimaan kor u dhaafaya 100 filim oo heer caalami ah kuwaasi oo ku saabsanaa taariikho iyo dhaqamo kala duwan oo ay leeyihiin dadweynaha dunida ku teedsan filimadiisii ugu horeeyay waxa ka mid ah filimka Viva Zapata wuxuuna ahaa filim adduunka aad looga jeclaaday oo lagu turjumay 10 luqadood oo caalamka looga hadlo waxaana filimkaasi dartiis uu ku helay abaalmarinta dhanka aflaamta ee Oscar-ka isagoo noqday Latin American-kii ugu horeeyay ee biladaasi hanta markii uu muddo 40 sanadood ah filimada jilayay ayaa Anthony Quinn waxa uu u dhaqaaqay in uu qayb ka noqdo jilada filim islaami ah kaasi oo aan ahayn filim yar oo iska caadi ah balse uu yahay filim ka sheekeynaya taariikhda suubanaha naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee filimkaasi oo loo yaqaan filimkii risaalada ama The Message waxaana la sii daayay sanadkii markii uu ahaa 1976 waxaana filimkaasi loo aqoonsaday inuu yahay kii ugu horeeyay abad ee si faahfaahsan uga warrama bilowga iyo soo iftiimida diinta Islaamka iyo duulaanadii ay asxaabta nabiga la galeen gaalada filimka risaalada waxa uu Antonio ku matalayay nabiga adeerkiis saxaabigii lagu magacaabi jiray Xamse bin Cabdi Mudallib isagoo filimkaasi uu guulo badan ka sameeyay wadamada Carbeed iyo dhammaan dalalka Islaamka laakiin markii ay dadku ama kaageen waxa ay ahayd kolkii ay ka war heleen in ninka jilayay kaalinta nabiga adeerkiis Xamza ee filimka risaalada ku jiray aanu ahayn nin muslim ah waxaana dadku ay isweydiiyeen sababta booskaasi loogu waayay ruux muslim ah oo Carbeed kaasi oo afka Carabiga ku hadli kara laakiin sababta filimkaasi loogu dhiibay Antonio ayaa ahayd maadaama uu khibrad dheer u lahaa jilada filimada isla markaana uu si wanaagsan uga soo baxayay kaalin walba oo filim ku saabsan ee loo dhiibo waxaana filimka risaalada ay dadkii daawaday ee Carbeed ay gaareen heer ay u maleeyaan in ninkani uu yahay mid muslim ah kaasi oo ku dhashay diinta Islaamka inkastoo filimka risaalada uusan ahayn kii ugu horeeyay ee Anthony Quinn hase yeeshee waxa kaga horeeyay filimaan kale oo Carbeed kuwaasi oo uu jilay filimaanta uu jilay ayaa waxa ka mid ah filimka lagu magacaabo Lawrence-gii Carabiya ama The Lawrence of Arabia kaasi oo soo baxay sanadii 1962 iyadoo filimkaasi uu ku saabsanaa sargaal Ingiriisi ah oo lagu magacaabo Lawrence oo dawladda Ingiriiska u xil saaratay in dalalka jasiiradaha Carabta ku teedsan uu ka caawiyo
sidii ay isaga xoreyn lahaayeen khilaafadii islaamka ahayd ee cusmaaniyiinta, waxaana Lawrence uu garab siinayaa dhaqdhaqaaqyadii carbeed ee ay hogaaminayeen Shariif Xuseen bin Cali iyo wiilkiisa Amiir Faysal. Filimkaasi wuxuu muujinayaa xaalkii ay carabtu ku sugnaayeen berisamaadkii iyo tafaraaruqii iyo qabyaaladii carabta ka dhex taagneed. Sidoo kale mar uu Antonio filim ku sameynayay waddanka Liibiya ayaa waxa uu arkay sawir la yaab leh kaasi oo ku dhex sawiran lacagta 10 diinaar ee Liibiyaanta. Sawirkaasi oo ahaa hogaamiyihii weynaa ee Talyaaniga ka xoreeyay waddanka Liibiya, Omar al-Mukhtar. Dabadeed Antonio waxa uu weydiiyey shakhsiga ku sawiran lacagta iyo taariikhdiisa, waxayna u sheegeen in uu yahay Omar al-Mukhtar. aad ayuu ula yaabay Antonio, wuuna la dhacay shakhsiyadda Omar al-Mukhtar, isagoo sheegay in geesigaasi ay aad isugu ekaayeen xagga muuqaalka, iyadoo waqtigaasina da'diisu ay ahayd Antonio mid kor u dhaafaysa 66 sano. 4 sannadood kadib waxa uu Antonio Quinn jilay filimka caanka ah ee Libaaxii Saxaraha loogu magac daray, isagoo jilayay shakhsiyadda Omar al-Mukhtar oo si kulul ula dagaalamaya gumaystihii Talyaaniga. Filimkan ayaa shaashadaha la soo saaray sanadii 1981. sidii uu Antonio Quinn u jilay dowrkii Omar al-Mukhtar ayaa waxay ahayd mid la rumaysan kari waayay oo heer sare ah, ilaa dadka qaar ay moodeen in uu dib u soo noolaaday Omar al-Mukhtar. ilaa iyo maanta dad badan oo carbeed ayaa kala garan la sawirada Omar al-Mukhtar iyo Antonio Quinn, waxayna qaybtood dadka carabta ee aad ku jecel geesigii Liibiya Omar al-Mukhtar guryahooda ugu dhagan sawirada Antonio Quinn oo ay rumaysan yihiin inuu yahay Omar al-Mukhtarkii rasmiga ahaa. Isku soo wada duubo, Antonio Quinn ayaa waxa uu guursaday 3 haween ah, waxa uuna dhalay 13 caruur ah, isaga oo geeriyooday ugu dambeyn 2001. intaas ayaynu ku soo koobaynaa taariikhdii jilaagii aan haysan diinta Islaamka ee ka yaabiyey dunida carbeed, kaasi oo jilay nabiga adeerkiis Xamza bin Cabdimudallib, sidoo kalena sameeyey filimkii caanka baxay ee Saxaraha Liibiya, kaasi oo ku metelay shakhsiyadda Omar al-Mukhtarkii Liibiya.